qof horta markuu wax barto oo cilmi yeesho ogaan kara waxaan inay wax sax yihiin inay wax qaldan yihiin. madaxa xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyagoo ka duulaya horumarinta waxbarashada dadka ka shaqeeya kubadda cagta waxaa ku tobankii bil ee la soo dhaafay ee sanadkan 2024 aqoon kororsi kala duwan la siiyay in ka badan 100 dhalinyaro ah waxaana ka mid tahay tiirka ugu muhiimsan ee hoggaanka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta CAFD lagu qabto Soomaaliya markii ugu horeysay macallimiinta aad iyo aad ugu mahad celinaya sidoo kale waxaa u mahad celinaya xiriirka kubadda cagta oo asigana maartay ilaantiisa ay suuro geliyeen 18 Febraayo 2024 xarunta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaa ka furmay tababar loo qabtay 20 macallin 21 Febraayo 2024 waxaa xarunta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ka furmay tababar heer caalami ah oo lagu baranayay course training for practical FIFA TMS and FIFA ID Connect waxaana tababarkan ka qayb galay 5 sarkaal oo kamid ah xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaana casharada aqoon kororsiga bixinayay Dr. Yacquub oo ka socda dalka Djibouti 26 Febraayo 2024 xarunta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaa lagu soo xiray seminar u socday muddo 5 maalin ah 5 sarkaal oo ka tirsan xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaana xiritaanka tababarkan ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan guddiga fulinta waxaana tababarkan bixinayay Dr. Yacquub oo ka soo jeeda wadanka Djibouti 25 Maajo 2024 guddiga ku-xigeenka labaad xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cabdirashiid Cabdulle Maxamed ayaa soo xiray tababar 3 maalin u socday macallimiinta heerka labaad ee Soomaaliya 26 Maajo 2026 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa tababar aqoon kororsi u furay macallimiinta heerka koowaad ee Somali National League 16 Abriil 2024 gudoomiyaha ku-xigeenka saddexaad xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Yuusuf Xuseen Muumin ayaa tababar aqoon kororsi u furay garsoorayaasha heerka koowaad iyo kuwa caalamiga ee Soomaaliya 15 Abriil 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed ayaa tababar aqoon kororsi u soo xiray garsoorayaasha heerka koowaad iyo kuwa caalamiga 17 Abriil 2024 xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa tababar u soo xiray howlwadeenada caafimaadka iyo ka faa'iideystay aqoon kororsi 2 maalin u socday 18 Abriil 2024 gudoomiyaha ku-xigeenka labaad xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cabdirashiid Cabdulle Maxamed iyo xubno ka tirsan guddiga fulinta ayaa tababar aqoon kororsi 2 maalin u furay garsoorayaasha dhalinyarada ee dhexaadinaysa ciyaaraha tartamada xiriirka Soomaaliya kubadda cagta 20 Abriil 2024 xarunta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaa lagu soo xiray tababar loo qabtay garsoorayaasha dhalinyarada tababarkan aqoon kororsiga ayaa socday muddo 2 maalin ah waxaan dhalinyarada ka qayb galay sheegay inay wax badan ka korsadeen muddadii uu socday tababarkan waxaa soo xiray gudoomiyaha ku-xigeenka labaad xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cabdirashiid Cabdulle Maxamed 1 May 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa tababar aqoon kororsi tababarkan oo lagu baranayay sida loo horumarin lahaa ciyaaryahanada daa'irta ee soo koraya iyo sida kor loogu qaadi lahaa badooda kubadda cagta 4 May 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed ayaa tababar u furay macallimiinta fusalka tababarkan oo soconayay 6 maalmood ayaa lagu bartay casharadii ugu dambeysay ee dhanka tababarnimada ee fusalka 9 May 2024 gudoomiyaha ku-xigeenka labaad xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cabdirashiid Cabdulle Maxamed ayaa tababar u soo xiray macallimiinta fusalka oo muddo 6 shaad tababar u socday magaalada Muqdisho tababarkan ayaa qayb ka ah qorshaha horumarinta macallimiinta dhalinyarada 25 May 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed ayaa xarunta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta tababar ugu furay aqoon kororsi ah garsoorayaasha heerka koowaad ee dalka waxaana tababarkan lagu baranayay xeerarkii ugu dambeeyay law of the game-ka 27 May 2024 garsoorayaasha heerka koowaad ee dalka ayaa loo soo gabagabeeyay tababar 3 maalin ugu socday magaalada Muqdisho iyadoo qaatay casharadii ugu dambeysay ee law of the game-ka 2 June 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa tababar u furay garsoorayaasha futsalka waxaana tababarkan lagu baranayay xirfadda garsoornimo ee futsalka taas oo qayb ka ah qorshaha lagu horumarinayo garsoorayaasha futsalka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta 4 June 2024 gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Axmed Faarax Taqal Tamajilic ayaa aqoon kororsi u soo xiray garsoorayaasha futsalka waxaana tababarkan lagu soo xiray xarunta dhexe xiriirka Soomaaliya kubadda cagta 20 July 2024 gudoomiyaha ku-xigeenka labaad xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cabdirashiid Cabdulle Maxamed ayaa tababar u furay macallimiin cusub oo xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu qaatay oo baranayay CAF License D coaching course tababarkan waxaa ka qayb galay ilaa 34 macallimiin kuwaas oo qaadanayay casharadii ugu dambeeyay ee CAF D 27 July 2024 xarunta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar ay qaadanayeen 34 macallin kuwaas oo baranayay CAF D license coaching waana markii ugu horeysay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu qaato tababarkan waxaana casharada tababarkan bixinayay macallimiinta waxbarashada xiriirka Soomaaliya kubadda cagta 3 September 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed ayaa daafuray koorsada sanadlaha ee loo qabto garsoorayaasha ugu sareeya dalka ee FIFA Elite Referee Course waxaana tababarkan ahaa mid ugu weyn ee laga soo garsoorayaasha kubadda cagta kuwa heerka caalami iyo kuwa gudaha waxaana tababarkan bixinayay macallimiinta kale ah Ali Saciid oo ah macallin Soomaaliyeed kana mid ah macallimiinta FIFA iyo Mag Mazing oo u dhashay wadanka Malawi 7 September 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa soo xiray tababar 5 maalin u socday garsoorayaasha sare ee kubadda cagta Soomaaliya kuwa caalamiga iyo kuwa gudaha waxaana tababarkan bixinay 5 maalin ee la soo dhaafay macallin Ali Saciid iyo soo kale macallin Mag Mazing oo ka soo jeeda wadanka Malawi 11 September 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa daafuray aqoon isweydaarsi heer qaran ah oo ku saabsan club license online platform oo loo qabtay xogayaasha madaxda diiwaangelinta kooxaha heerka koowaad ee dalka 12 September 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa soo xiray aqoon isweydaarsi 2 maalin u socday xogayaasha iyo madaxda diiwaangelinta kooxaha heerka koowaad ee dalka kuna saabsan club license online platform waxaana koorsadan ka qayb galay
galay dhammaan kooxaha horyaalka heerka koowaad ee Somali National League 24 Oktoobar 2024 xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa magaalada Laascaanood ku qabtay aqoon koros waxaana tababarkan bixinayay madaxa waaxda garsoorka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta Aweys Nur iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Cabdi Cabdulle Barsar 30 Oktoobar 2024 xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa tababar soo xiray garsoorayaasha daa'irta ee magaalada Laascaanood ee maamulka SC Qaatumo 9 November 2024 gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed ayaa daafray aqoon koros 5 maalin u soconayay aqoon koroskan oo iska kaashanaya xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo hay'adda kubadda cagta adduunka ee FIFA waxa ka qayb galay ilaa 30 garsoore oo kuwa daa'irta kuwaas oo loo diyaarinayo inay noqdaan mustaqbalka kuwa caalamiga koorsadan waxa bixinayay macallin Cali Maxamed Axmed iyo sidoo kale macallin Mag Mazingo oo ka soo jeeday wadanka Malawi 13 November 2024 magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay FIFA MA Youth Referee waxaana tababarkan ka qayb galay 30 garsoore oo ka mid ah garsoorayaasha daa'irta kuwaas oo mustaqbalka loo diyaarinayo inay noqdaan garsoorayaasha heerka caalamiga kubadda cagta Soomaaliya iyo kuwa gudaha waxaana tababarkan soo xiray Abuukar Isla Xasan oo ka tirsan guddiga fulinta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta